اللهم صل على dariiqada qaadiriyada ayaa ka mid ah dariiqooyinka ay diinta islaamku ku soo gaadhay Soomaaliya waxaana jira dad badan oo Soomaaliyeed oo dariiqadan aaminsan kuna dhaqma kuwaasi oo jiilba jiil u soo dhiibayay halka ay jiraan kuwa kale oo barashada diinta islaamka kaga aflaxay nidaamka qaadiriyada balse aan ku dhaqmin dariiqadan nidaamka xirowga ama qaadiriyada ayaa soo bilowday dabayaaqadii qarnigii afraad waxaana uu Soomaaliya ka soo galay magaalada Saylac waxa soo gaarsiiyay culimo Soomaaliyeed oo ay aad u qadariyaan dadka ku dhaqma dariiqada qaadiriyada sida uu sharaxayo Maxamed Sheekh Axmed oo ka mid ah culimada xirta waxaana dariiqadaas qaadiriya tusaale ahaan soo gaarsiiyay Soomaaliya ama Geeska Afrika mashaayikh waaweyn oo ka mid ahaa Sheekh Cidarus Al-Adani oo ahaa sheekh reer Yamaneed ah oo ka soo degay magaalada Saylac waqtigaas intii ka dambeysayna waxay dariiqadaas ku fiday ilaa Eritrea, Ethiopia, Djibouti iyo dhulka Soomaalidu ay joogto dhamaantii halkan waa xarunta ugu weyn ee isugu yimaadaan culimada suufiyiinta ee magaalada Boosaaso ku dhaqan caawana waxaa loo dabaaldegayaa ama la xusayaa dhalashada Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee halkani waa masjid ku dhex yaala markiiska culimada xirta ee Boosaaso waxaa loo fadhiyaa xuska dhalashada Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee oo sanad waliba la xuso bisha Mawlid ee taariikhda Hijriga inta badan waxa halkan fadhiya culimada xirta ee ku sugan magaalada Boosaaso mid ka mid ah iyaga ayaa qaadaya saliga nabiga iyo qasiidooyin kale oo nabi amaan ah inta kalena waa ay ka daba qaadayaan يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافق غيلي inta ay qasiidadu socoto mar waa la istaagayaa marna waa la fadhiisanayaa marka uu dhamaado saliga nabigu waxa la bilaabayaa casharo ka waramaya sirada nabiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un ilaahi waxa uu yiri subhanahu wa ta'ala nabi muhammadow waxaad dhahdaa fadliga ilaahay iyo naxariista ilaahay arintaas muuminiintu ha ku farxeen oo ha ku mirqaameen oo ha ku mabsuudeen suruur iyo farxad ha muujiyeen raxmadda ugu weyn oo ilaahay inoo soo hadiyeeyay oo inoo soo diray oo ina siiyay waxa weeyaan nabigeena Muhammad alayhi salatu wasalaam Allahumma salli wa sallim wa barik sallallahu wa sallam alayhi marka laga yimaado xuska dhalashada Nabi Maxamed waxa jira arrimo kale oo ay si joogto ah u sameeyaan culimada xirtu waxa kamid ah xus gaar ah oo loo sameeyo ama siyaarasho lagu tago quburaha culimo dhimatay muddo hore oo ku dhaqmi jiray dariiqada qaadiriyada taasi oo ay ku kala aragti duwan yihiin culimada Soomaalidu waxaana arintaasi mar kale aan wax ka weydiiyay Maxamed Sheekh Axmed waad hore dadku markii soo islaameen oo ay waqtigu ay ku dhawaayeen waqti ay maartay shirkiyaad iyo waxa jireen nabigu wuxuu ka nahiyay in quburaha siyaartaan laakiin markii dambe wuxuu yiri kuntu nahaytukum an ziyarati alqubur waxaan ahaa mid idinka nahiyay quburaha siyaarashadooda hadda waa islaamteen waxba kala fahamteen fazuruha alana hadda ziyaarta oo booqda fa innaha tudhakkirukum al-akhirah aakhir ayay xusuusinaysaa ibr qaadasho ayay idinku tahay sidaas dambeysay oo nabiga kaleey sallallahu wasallam umada faray isagaana siyaaran jiray nabiga kaleey sallallahu wasallam oo u jiday umada in quburaha siyaartaan inkastoo aanay culimada xirtu ahayn kuwa ka dhex muuqda siyaasadda iyo xukunka Soomaalida haddana nidaamka qaadiriyada ayaa ah mid wali ka sii jira Soomaaliya